dhismaha iga dambeeya waa Masjidul Ibrahim waxa uu ka mid yahay masaajidada ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir xilligan aan hortiisa taaganahay waxa ka socdo Quraan akhris waxa laga yaabaa in aad isweydiiso anigoo dumara sida aan sheekadan kugu soo gudbin doono balse ila daawo intii uu hadda Quraanka socday Quraanka wadnay ila ayaantii hore ee madaafiicdu ay ku soo dhacaysay degmada Kaxda ha ahaatee waligeed hal maalin hal xarafna Quraanka laga ma tagayo hal maalin ma baaqan waa in ka badan 30 culimo oo degan xaafadaha degmadan waxa ay subax kasta masjidkan gudahiisa ku aqriyaan 30 juz ee Quraanka Kariimka iyagoo guud ahaan 114 suuradood ee Quraanka Kariimka ku dhameeya 40 daqiiqo oo kaliya waxa ay ku midaysan yihiin ayaa ah in degmadan ay ku nool yihiin u sameeyaan Quraan akhris joogto ah si xaaladaha kala duwan ee dhibaatooyinka jira oo Allah uga badbaadiyo barwaaqana ay ku gaaraan Sheekh Cabdixakiin Sheekh Cumar oo kamid ah culimadan ahna hogaaminta maamulka masjidkan ayaa sharaxaya waxa ku dhaliyay joogteynta akhrinta iyo muddada ay soo wadeen in degmadan iyo dadkeeda maalin walba la Quraan saaro Quraanka waxaan ku akhrinaa taqriiban hadda wuxuu socdaa 13 sanadkii 13aad baan hadda ku jiraa wuxuu leeyahay Quraanku culimadu u samaysatay shuruud markii la bilaabayo waxa lagu bilaabaa asmaada Ilaahay markii la dhameeyana waxa lagu soo khatimaa salliga inta Quraanka la akhriyayo wax telefoon oo haduu soo dhaco la qaban karo ma jiraan taatanba qof hadli karana ma jiraan hadii hooyada kula soo hadasho lama hadli karo shuruudda uu Quraanku u leeyahay way waxa kale intii uu hadda Quraanka socday Quraanka wadnay ila ayaantii hore ee madaafiicdu ay ku soo dhacaysay degmada Kaxda ha ahaatee waligeed hal maalin hal xarafna Quraanka laga ma tagayo hal maalin ma baaqan waxaan ugu dhaliyay markaan aragnay burburkii meeshu marahay Ilaahay in diintii Ilaahayna uu leeyahay fafirru ila Allah diinta Ilaahay markii fidnadu ay dhacdo diinta Ilaahay baa lagu carraa marka waxaan ku talagalay hadii alla yiraahdo in aan Soomaalida ama Islaamka oo dhanba inaan ugu ducayno oo Ilaahay u barino si uu Ilaahay fidmadan iyo waxan dhacay Ilaahay uga badbaadiyo dadka deegaanka ayaa u arka arintani dhiirigelin wadajir iyo wax wada qabsi lagu tanaaday isla markaasina ka warqaba xaalad walba oo soo wajahdo culimadan maadaama ay u taagan yihiin horumarka deegaanka ay ku nool yihiin waxaan ahay gabdhaha degmada Kaxda degan Quraanka masaajidka Al-Ibrahim lagu akhriyo ee ratibka Kaxda sidii ma garanaysa loo aas-aasay loo dagay Quraankaas ugu socdaa waana la khatimaa gabalku markuu dhacayo waxaad mood diyaarada inay soo dagayaan Quraanka akhrintiisa bas wax ka dhacaysa anu waan u dhawaay meesha ku yaalaan degan agteeda marka Quraanka Ilaahay waa nagu badbaadiyay kulay dadmooyin kale ma qaban saan jeclahay ee degmada Kaxda way qabtaa il gaar ahaaneed baana lagu dhowraa Ilaahayna waa nagu badbaadiyay waxaana dhahnaaba caagadahan ilmaha u dhiibanaa nooga soo qaad taxliishan dhahnaa ani kuleysa waxa la yeekana saddexle gurigayga inay ka dhamaato ma jeceli waxaan ka faa'iidnay xasilooni amni nabad waa degmada la dhihi karo waa degmada ugu nabadsan markii deegaan 17 degmo marka la fiiriyo degmada amni ahaan hadii la fiiriyo ugu xasan way caafimaadka hadii la dhaxata aad u wanaagsan yahay dadkeeda xataa dad oo isxiriiriyo oo mataqaanada iska warqaba weeye waa hawl ay muddo soo wadeen aqrinta Quraan saarka degmadan si Allah baryadiisa ay ugu xirnaadaan iyaga oo maalinna ay habsaameen Quraan aqrinta ay ka wadaan degmadan haddana waxa dhici karta in midkood ay qabsan karto xaalad uu ku soo gaari waayo masjidkan oo looga fadhiyo Quraan aqrintiisa mid laga baaqsan sidee ay u xalin karaan baahiyaha markale waxa ka jawaabaya Sheekh Cabdixakiin Sheekh Cumar markii hore shuruudu ay kamid ahaydba qofkii ay cilad ku timaado ama qofka xanuunsada ama asaga xanuunsada ama arin adag la soo xiriiro inuu fasax yahay waxba loo haysanin wixiisina ragaa kala akhriyaya
shuruudaanadii horaaba ahaydba wax shardi ah xoolay ma jireen ha waa loo ducaynayaa marka qur-aanka la dhameeyo faatixada loo maraya qadarka ilaahay meeshiisa wey laakiin inaan joojinno ma go-aan nooma ah sidaan u bilownay inaan cimrigaana ku qaadanaan rabna haddii alla yidhaha gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf Maxamed Yare ayaa isagana hordhignay kaalinta ay maamulkooda ka geystaan joogteynta hawshan oo bulshada degmadan ay u riyaaqeen quraan akhriska ka socda degmada Kaxda waana wax joogto ama ahana wax ama hadda bilowday ama maalmahan bilowday ma ah markii la aasaasay degmada xilligii waliba ay deegaanka ahayd iyo soo bilowday quraan akhriska maalin kastana waa la dhameeyaa quraanka 114 quraan kariimka waa la dhameeyaa annagana waxaan ka geysanay ka maamul ahaan inaan ogaano culimadaas ku dhiiri gelino la joogno ka warqabno soo booqano kana warhayna markasta marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay Soomaaliya quraanka ku guuri doonto la aamini doono insha Allah taala nabadna lagu gaari doono Ilaahay idinkiisa